furayaashan waa ugu badan oo dalka laga baaro runtii idin wada tusi karo hadda qaarkood inaan ka qariyaan ku qasbanaanaya waayo anshax ma ahan waxay cadeynaysaa wax anaga dadkeenu ay baaraan hadda xogaa muuqaalka dib aan dheereeyo step by step soo sameeyo tusaya marta waxa ka baran kartaa meeshan hadda daan dhaho kale how to cook dana si loo kariyaa rice with meat hilib iyo bariis si loo kariyaa hadda Soomaaliya aad u jecel wak oo isu saaray muuqaalo kala duwan ka doonta ka dooranaysaa bal xitaa meesha dhex wax ku soo saaraya option kala duwan how to cook chicken simple way si aan si fudud chicken loo kariyo kale bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jaalay waa idin salaamay daliyadood meel kasta aad joogtaan maanta waxaan jeclaystay xogaa yar muuqaal yar inaan idin la wadaago aan is oran runtii inaan soo gaabiyaan rabo kaasoo ah TikTok waxaad is oran doontaa TikTok maxaad nooga sheegi kartaa TikTok waa ka naqaanay bal haddaan Soomaali joognana magac fiican ma lahan runtii TikTok waayo waxa weeyaan qofkii TikTok laga soo sheegay war wanaagsan laga soo sheegin laakiin maanta waxaan rabaa xogaa yar bal dhinac kale inaan ka yara eegno sidaad ogtihiin TikTok su'aalahan kala dhowr website oo meeshaana macluumaad yar ku qoran hadda isla eegno waxaa la dhahay website-kan Euronews ayaa la yiraahdaa TikTok ma sidaan hadda u wada naqaan Soomaali haddaan nahay aan u naqaan badi inuu yahay meel la soo dhigo badana muuqaal la gaagaaban oo madadaalo ah oo noocyo kala duwan ah oo haddaan nahay Soomaalina aan ognahay inaysan xigmad badan ku jirin miya adduunka asaas ma adeegsadaa mesela intaas in ka badan weeyaan webkan hadda macluumaad ku qoran hadda wuxuu noo sheegayaa website qaar in bal uu TikTok u dhaafay Google caadi ahaan waa manasa ama platform xog laga baaro sababna dadku waxay yiraahdaan waxaas aniga ha ay weydiinay Google weydii Soomaa luqada badan hadda umada kala duwan hadda la tacaamulay qaarkood inaan Soomaali kaliya ahayn waxay ku leeyihiin adeer Google weydii bal ergaas isticmaalaan adeer Google weydii waxa maxay u dinaysaa marka sanadada u dambeysay wala dhowrkii 3 sano ugu dambeysay 2 sano hadda ugu dambeysay waxay sheegayaan taqaarirtu ama ribooradu in TikTok uu noqday Google ka cusub maxaan ka wada Google ka cusub yani qofka wax kasta oo baari jiray hadda wuxuu ka raadiyaa TikTok Facebook laga raadiyo Google su'aalahan oo kaliya khaasatan generation Z dadka loo yaqaan generation Z waxa wada 1990kii iyo wixii ka dambeeyay 1993 ilaa wixii ka dambeeyay dadka dhashay waa generation C badana waliba khaasatan 1995 95tii wixii ka dambeeyay dhan waxa la yiraahdaa generation Z baa la yiraahdaa wuxuu leeyahay generation C TikTok waxay u isticmaalaan badiilkii Google isticmaali jireen oo wax kasto ay rabaan maanta inay ka baaraan way geliyaan hadda su'aal dhanka kale hadda jariidadan loo yaqaano The Verge oo kamid ah jariidooyinka ugu faalada badan teknolojiyadda ayaa wuxuu leeyahay qoraagan David Pierce waxa isku dayay bedelkii Google waxa isticmaalay TikTok aan runtii natiijo ka fiican baan helay marka qodobada hadda ka hadla dhan waa fiirin doonaa yani sidee loo adeegsanaya TikTok-gan Google wuxuu qaabkan uga bedelan yahay oo kaga duwan yahay maxay noqon kartaa balse intaana xogaa dhankaas u gelin baan rabaa xogaa yarta tafaasiil yar inaan ku sii jiro su'aalahan hadda TikTok dalka ugu adeegsiga badan haddaan Soomaalina dabcan uma malayna taa content ugu horeeyna soo gelin su'aalahan kala hadda statista oo webkan oo website ugu caansan macluumaadka ihsaa'iyaadka ama tirakoobyada sameeya wuxuu leeyahay United States oo Mareykanka ah ayaa number 1 kaga jira 123 milyan adeegsada waxaan oranayaa 30 shacab weyn dalka ku nool ilaa 300 iyo dheeraad milyan baa ku nool marka 123 adeegsanayso waa 3 meelood meel baa dalka dhan adeegsanaysa Indonesia ku xigta oo ah dalka koowaad muslimiinta dunida ugu badan waxa ku xiga Brazil Mexico and so on Turkiga kala sanad dal muslimiin ku jira oo ilaa 30 milyan dad ku dhow adeegsanayaan hadda top waxay noo soo saareen baa filiyo top 10 iyo xogaa dal ah Peru oo kala ugu dambaysa oo 15 milyan meelaas follow garanayso yani adeegsiga caadi ahaan webkan ama application-kan oo ka horeeya applicationada badan ay reer galbeedka soo saaraan sida hadday noqonaysa Facebook iyo teamkiisa oo soo hosgalayaan Instagram WhatsApp iyo waxa la mid ah xogaa marka macluumaad yar kale aan kugu sii daraya oo ah waxay leeyihiin taqaarir badan oo hadda hal kamid ah halkan idin kula wadaagay hadda jariidada New York Post waxay leedahay China caruurteena TikTok ay ku haleynayaan yani TikTok-ga caruurteena waa haleynayaan halka Chinese-ka midka ay u adeegsadaan oo waxay u yeeraan DOUYN Douyin si loogu dhawaaqa muuqaalaha marka la fiiriyo loogada wax walba marka la fiiriyo waa TikTok-ga naqaani weey yani farq weyn hadda u dhaxeeya oo la oran karo runtii uu kaga duwan yahay ma jiro marka waxay leeyihiin TikTok-ga China ay adeegsato oo dhalinyarada Chinese-ka adeegsadaan algorithm-ka ama xisaabta ka dambaysa macluumaadkan soo dalxinaysa soo sii deynaysa way ka duwan tahay midda caalamka la adeegsado tusaale ahaan bay leeyihiin
haddii nin dhalinyaro nin Chinese uu soo dhiga maanta ama carruurta Chinese maanta ay soo dhigaan muuqaal dancing ama iska madadaala ama iska mataqaana wax badan aan Soomaalida soo dhigno badan oo kala soo dhigaan inay helaan muuqaal daawasho badan ama faal celin badan ama share badan inay helaan oo kale way adkaanaysaa halka hadduu soo dhigo muuqaal hal abuur quseeya su'aalaha shirkad cusub uu sameynaya wuxuu isku dayaa robot cusub isku dayaa wuxuu sameynaya naqshad cusub waxa la hal abuur oo wax ku ool markuu sameynayo dhiirigelin bay siinaysaa share badan uu helaya muuqaalkiisa waa la bush gareynaya dad badan buu gaaraya marka waxay ku doodayaan hadda New York Post oo kale waxay ku doodayaan kooda duwin weeyaan oo magac kale oo la bixeen xisaabta ku shaqeynayay aqliyada ku shaqeynayay uu ka duwan yahay annagana waxay noo soo daayeen TikTok oo mataqaana xaalkiisa aan ognahay marka xaalkiisa horta waa kaas TikTok waxa weeye applicationada ugu caansan ee adduunka hadda loogu isticmaalka badan yahay dadka ugu badan oo adeegsada waa dhalinyaro generation Z iyo wixii la mid ah bal dalalka ugu badan adduunka adeegsan waa reer galbeed Chinese baan soo saaraysan ognahay orahdii ahayd Google buu bedelay TikTok oo waxa loo adeegsadaa maanta in wax laga baaro bal asla tijaabino su'aalahan oo taleefanka hadda soo qabsada hadda taleefanka shaashadiisan duubaya waxa ii soo baxaya maadaama hadda aan Soomaali ku suganahay search engine ama meesha wax laga baaro wuxuu soo saaraya 1 2 3 ilaa 10 key term fure buu soo saaraya furayaashan waa ugu badan oo dalka laga baaro runtii idin wada tuso hadda qaarkood inaan ka qariyaan ku qasbanaanaya waayo anshax ma ahan waxay cadeynaysaa wax anaga dadkeenu ay baaraan hadda inaan ogaado Soomaali maxay baartaa hebel wadi uma baahne hadda meesha search engine ku dhufto kaliya oo fiiriyo waxay ugu badnaa af Soomaali baarto ama regionka marka ku sugan ay soo saaraya marka already waad u jeedaa anaga qaabkan u adeegsano ilaahay umurteena ha sahlo marka waa ka gudbaya sidee loogu adeegsadaa mataqaana markaan dhahayay oo kale masala video waxaan rabaa inaan waxaan doono how to haddaan geliyo bas wuxuu saarayaa see book Facebook book loo design garaya sidee loo edit garaya iPhone photo this masala waxaan raacinayaa how to draw sidee loo sawiraa weji uu soo saaray hadda ama wuxuu leeyahay sawir sidee loo sawiraa ama butterfly sidee loo sawiraa mataqaana balanbaalis haddaan ku dhufto hadda wuxuu ii soo saarayaa dad kala duwan sawiraya hadda boggan cusub oo kale haddaan ku dhufto waa kan waa qofkan challenge uu sameeyay dhowr 10 maalmood 15 maalmood way dabcan hadda waa kan daxoga muuqaalka dib aan dheereeyo step by step soo sameeyay tusaya marta waxa ka baran kartaa meeshan waxaan oranayaa how to draw ama waxaan dhahayaa haddaan dhaho kale how to cook hadaan si loo kariyaa rice with meat hilib iyo bariis loo kariyaa hadaan Soomaaliya aad u jecelnahay oo soo saaray muuqaalo kala duwan ka doonta ka dooranaysaa bal xitaa meeshan dhex wax ku soo saaraya option kala duwan how to cook chicken simple way si aan si fudud chicken loo kariyo kale aan soo hadda su'aalahan oo kale hadda Google gelino qoraalkan oo kale su'aashan oo kale gelino wuxuu noo soo saaray qoraal la dhaadheer page kala badan marka xitaa qofka Facebook wax ka marka qaar Google wax ka baaraya waxa oran karnaa wax u baahan yahay xoogaa inuu kala garanayo wax uu raadinayo iyo wax badan oo soo baxay laakiin hadda TikTok marka joogno kale automatic waxa ku soo baxay wixii raadinaysa ku soo baxay waayo Cabdi Caasho iyo John iyo James kale oo dal kale ku sugan ba isla waxa raadinaysa ayaguna raadinaya marka xitaa qaar kood xaysiis ma toos qof asoo shakhsi gurigiisa ku sameeynaya ay ku soo baxayaan su'aalahan kala ma wada English ba maadaama geli imtixaan how to memorize Quran oo soo saar ma jeeda si Quraanka loo xifdiyo dan ku dhuftaa TikTok dad kala duwan ay soo baxay qaar application ay tusaya saan u xifdin kartaa nin soo culimo kala duwan ay soo baxaysa dhalinyaro dad waaweyn nooc walba ay soo baxay ya Quran is something that Allah subhanahu wa ta'ala garanaysa waxaan doonaan gelinayaa how to wax kasto how to do this how to record a video say video loo record garaya in iPhone se loogu record garaya while reading adoo wax akhrinaya on Instagram meesha dunta da gelinaysa Soomaali ma gelin karnaa sidee loo tukada haddaan geliyo kala si loo tukada salaatul leyl isoo saara aan ku dhufto laakiin gabar bay soo baxday sheekheena qaaliga ah isoo baxay ninka raba inuu sunnadii nabi maxamed ku daydo garanaysa dad kala duwan Soomaali dal iyo dibad waxa doonta geli ya aan jeelo ma gelina sidee loo dubaam si loo kariyaa iska dhana si loo kariyaa dalac bilaash halkan ka baro iskaabuladi mee halkan gelinaysa si loo kariyaa oo lagu sharxayaa sidee loo degsadaa video TikTok wax kale soo saar hadda مجدا marka yani qani ma boqolkiiba boqol sida hadda aan ka rabnay ma noqonayso
luqadda Soomaaliga markaan ka hadlayno laakiin luqadaha kale markaad gelisid wuxuu kugu soo baxayaa si ka duwan saan sheegaynay marka labaad TikTok maqashid ha u fakirin kaliya meel anshax xumo iyo muuqaalo kala duwan oo macna aan lahayn adduun aakhiraba aysan ahayn waxaad u fiiraysaa dhanka kalena inaad adeegsan karto marka muuqaalka yar baan rabay inaan idin la wadaago oo TikTok ku saabsan haddii muuqaalkan xitaa is oranay fikirka wuxuu ka bedelay oo dadka TikTok ka caro yiraahdo meesha meel xun weeyaan iga dhaafi waxaad ogaateen qaabka xitaa adeegsan kartid bal adigu laftigaagana haddaa xirfad leedahay ama aqoon aad leedahay is oranaysid waa magac ka haraya ama dadka u kordhin kartaa laftigaagana waad adeegsan kartaa marka labaad oo Google wax weydiin lahayd oo oranaysa boqolaal page ba ku soo baxayo oo baarid kaaga baahan saan kale weydiin kartaa bal YouTube ka xitaa YouTube marka ka hadlayno isla Google iyo YouTube shirkad Alphabet la dhaha isla leh oo ragana sii dhaafay waxa keenaya wax walba adeegsiga application-ka inta dad adeegsata buuqaniya يعني dad badan ka adeegsanayaan macluumaad kala duwan bay soo gelinayaan xog badan bay soo gelinayaan taa waxay fududeynaysaa marka in macluumaadka xagga kale laga helay dhinaca si ka waafisan looga helo waa muuqaalkaas oo yar koombu ahaa waa aniga Maxamed Azhari saarag maqal damo xiisa badan salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh